shalaydu inay ehelkuu noqoto aad ayaad ugu nuuraysaa waayo waad fahmi weysay qiimaha ay leedahay waxa kaa maqan way fiicnaan lahayd haddii aad dareensanaan lahayd ahmiyadda ay xidhiirkeenna u leedahay inaan is-aaminno qalbiyadeennana isku furno noloshu waa maalmo yar oo u baahan in farxad lagu qaabilo muddadaas yar ha ka walwalin waan ka gudbayaa xanuunnada aad qalbigayga u geysatay inkastoo shalaydu aysan soo celin wax lumay haddana waa tiirka ugu horreeya ee halqabsiga u ah qalbi la dhaawacay sida kayga oo kale way adag tahay inaad mar uun ku baraarugto inaysan gacantaada waxba ku jirin laakiin waxaa ka sii daran inaad ku noolaato hawo aan waxba ka jirin way adag tahay inaad nabaday tiraahdo qof aad jeceshahay adigoo og in noloshu ay maalmo murugo iyo jahwareer galayso qofkaas la'aantiis laakiin waxaa ka dhib badan in maalin walba qalbigaagu u taagnaado hadimooyin aadan filayn